sheekada filimkeena maanta waxay ku bilaabanaysaa gabadhan la yiraahdo Jane oo maalmaha kamid ah waxa ka helayso galofis boxingka guriga jaban dhexdiisa kadibna gurigeeda ay u soo qaadanaysaa aabaheedna ay arrinkan ka caroonay maadaama uu arko arrinkan inuu ahayn arrin gabdhahan lagu talagalin boxing inay ciyaaraan kadibna uu ka tuurayaa laakiin gabadhan waa gabar aad u madax adag oo maalin kasta way xiranaysaa kadibna way ku ciyaaraysaa hooyadeedna markay aragto gabadhan in aad u jecesha boxingka aad ay ugu farxaysaa iyada lafteeda muddo ayaa ka soo wareegtay markaan gabadhii waa dhowr iyo 10 jir maalmaha kamid ah ay iskuulka wiil isku dagaalayaan ayagoo isaysta ayaa macallinkii goobta soo gaarayo kadibna ninkii la dagaalamay ay cararayo goobta ka cararayo sababta ninkii la dagaalamaysa saaxiibteed darteed maadaama boyfriendkeeda uu ahaa oo dhibaatin jiray guriga markay soo gaartay aabaheed ay arkay dhaawacyada wajigeeda ku yaal kadibna aad ayuu u caroonaya arrinkan aabaheedna wuxuu doonayaa inay gasho iskuulka ciyaaraha fudud gabadhiisa laakiin iyada ma ogol arrinka aabaheed ayaa ku ciqaabay isbuuc inay guriga ka bixi karin maadaama dagaal ay soo gashay isbuuc kadib iyadoo iskuulka u socotay ay wadada ku arkaysaa ninkii isdagaalayeen isla markaasna waxay go'aansanaysaa inay goobtaas kula dagaasho golofiska iyana ka soo baxsanaysaa wayna gashanaysaa kadibna inta uu ka kala tuuro ayuu ka cararayaa ninkii wayna ciyaarsanaysaa oo kama harayso ilaa uu ka galo gymka boxingka lagu barto isla markaas ayaa tababarihii arkay kadib uu ku qeylinayaa wuxuuna ku amrayaa dagaalka inay halka ku joojiyaan wuxuuna Jane u sheegayaa inuu golofiska boxka lagu talagalin dagaal laakiin lagu talagalay sports iyo ciyaaro tababaraha magaciisa siin ayaa la yiraahdaa wuxuuna hore ugu soo guuleystay championka boxingka Jane aad ay ugu farxaysaa maadaama ay la kulantay tababarahan khabiirka ah waxayna ka codsanaysaa inuu tababaro isla markiina wuxuu ku leeyahay fursad ayaa ku siinaya waa inaad subax kasta timaada 7 subaxnimo haddii aad doonayso inaad macallin ku noqdo Jane aad ay ugu farxaysaa isla markiina ninkii isdagaalayeen oo meesha keenay ay hab siinaysaa wayna ugu mahadcelinaysaa maadaama halkan soo galiyay isla markii gurigeeda tagtana hooyadeed ay la socodsiinaysaa arrinkan aad ayay ugu farxaysaa hooyadeed halka aabaheed uu diidayo inay boxing u tababarato laakiin hadalka aabaheed dhag sharq u sameeyso oo hore ay u wadaysan arrinkeeda subaxdii xigtay intay isdiyaariso ayay soo baxaysaa hatta gaariga baska uu ka buuxsamay ay korka soo koraysaa si aan u soo daahin goobtii tababarka ayna soo gaaraysaa laakiin tababarihii markay gacanta u taagto wuxuu ku amrayaa inay halka iska fadhiisato waan iska fadhiisanaysaa maalintii xigtana sidoo kale meel fadhiisa ayaan leeyahay maalintii ku sii xigtay sidoo kale 10 maalin oo xiriir ayay meesha iska fadhiisaa halka ayna ka daawanaysaa ugu dambeyn tababarihii ayaa u manay uguna yeeray garoonka si tababarkeeda halka ugu bilowdo isla waqti xadarkaasna waxay bilaabaysaa in la tababarto ciyaartoydii kale ee halka ku tababarnay aad ayay u dagaalaysaa in tababarkii si fiican u qaadato maalmaha kamid ah ay arkaysaa walaalkeeda oo inay markii weydiisay sababta uu inay wuxuu sheegay in saacooda loo haysto lacag deyn ee lagu leeyahay iga dartood waxayna ballan uga qaadaysaa walaalkeeda inay soo celi doonto saacooda kadibna waxay tagaysaa meel street fight lagu ciyaaro si ay lacag u soo hesho saacida ku soo ceshato waxaana ku soo dhacaysa fikradda ah inay dagaalkan ka qayb gasho si ay lacag ugu tacbato halkan waxayna go'aansanaysaa dagaalyahankan inay la dagaalanto ninkan waxa loogu yeeraa Lieboy kadibna uu qaadan weynaya maadaama qofkan la tartamay ay gabar tahay laakiin markay ku dhahdo meega cabsanaysaa ayuu wuxuu go'aansanayaa inuu la dagaalamo waxaana u ballan qaadayaa 15 sakin walba ay badbaadaba inay $4 leedahay kadibna dagaalkooda ayaa halka ku bilaabanayo dagaalka bilowgiisii koowaad gabadha way u gogoynaysaa laakiin ugu dambeyn waa la joocanayaa inkastoo Lieboy isdhahay gabadhan wax ka takhalustaa dana way soo istaagaysaa oo dagaalka halka ay ka sii wadaysaa kadibna waxay bilaabaysaa inay dagaalanto kadibna way joconaysaa laakiin feerkeeda gabadhan waxba kama dhiban ninkan kaliya way isku carwaaminaysaa oo isku diraysaa ugu dambeynna madaxa ayuu ku dhufanaya halka inuu uga takhalusaya gabadhii abaar ka bacdi ninkii lacagta qaybinaya ay la dagaalaysaa maadaama $4 kaliya uu siiyay waxayna u sheegaysaa ninkan in daqiiqada la dagaalamayay lacag badan ay ku leedahay 45 sakin oo lacag ayaan kugu leeyahay ay ku leedahay ugu dambeyn nin ayaa u imaanaya online la yiraahdo si uu xalliyo arrintooda asiga ayana u kala qarqaadayo sidaas inay lacagteeda ku helaysaa $12 maalintii xigtana lacagta ay soo bixinaysaa si ay saacad u soo laabato wayna soo qaadanaysaa walaalkeedna aad ayuu ugu farxayaa arrinkii walaashii samaysay halkaas inay tababarkeeda ka sii wadanaysaa ee isku diyaarinaysa buujimada ugu dambeynna waxaa la gaarayaa waqtigii tartanka kadibna magaceeda ay soo eegaysaa waxayna ka weynaysaa magaceeda halka kadibna macalinka ayaa u imaanaya wuxuuna ku leeyahay inay halkan ku jirto kaliya magaceeda uu bedelay maadaama magaceeda uu mid aad u dheer u ahaa wuxuuna u sheegayaa inuu u baxshay Maricam magacaasna ay ku ciyaari doonto halkaas ayna dagaalkeeda ugu horreysay ka qayb galaysaa maadaama gabadhan tababar aad u fiican ay macalinka soo siiyay si fiican ay u dagaalamaysaa kadibna si fiican ay u noogaraynaysaa wayna ka raayinaysaa opponentiga la dagaalamayay baladeed ugu horreysay inay halka ku soo qaadanaysaa dhanka kale maqaayadda aabaheed ayaa waxaan ku arkaynaa asiga iyo saxaabtiisa oo meesha wada fadhaan asxaabtiisana waxay akhrinayaan joornaal ka sheekeynaya gabadha boxarada ah ee championka soo qaaday biladana ku guuleysatay xaafadoodana ay degan tahay kadibna joornaalka ay ku qaadaya si uu eego markuu eegano cid kale ku naqamayso oo gabadhiisa ay ku naqanaysaa isla markaasna asiga oo careysan ay guriga soo cararaya isla markiina wuxuu bilaabayaa guriga inuu baarbaaro markii la weydiiyay wuxuu eegayo raadinayna wuxuu sheegayaa inuu doonayo golofiska boxka si carale ayuu u weydiinayaa ugu dambeynna Maricam golofiska ay u dhiibaysaa aabaheed isla markiina aabaheed wuxuu ku tuurayaa dabka si uu u gubo ayaga dhama ugu takhaluso aad ayayna ugu naxaysaa gabadha isla markaasna dagaalkooda ayaa halka ka bilaabanayo iyo doodooda aabaheedna isla markaas 2 far ayuu taagayaa inay aabaheed doorato iyo inay boxingka doorato wax kale oo meesha yaal ayna jirin
murankooduna aad ayuu ugu sii dheerayaa. Ugu dambeyn gabadhi waxay leedahay boxingkayga ayaa ii roon, maadaama ay aaminsan tahay gabadhan aabaheed inuu dib dambe u cafi doono. Kadibna halkaas ayay kasii wadanaysaa ciyaaraheeda boxingka, guulo isdaba joog ayayna gaaraysaa. biladba mid ka sarreysa ay sii qaadanaysaa. Ugu dambeyn waxay soo gaaraysaa final lagu qabanayo Turkiga ee championshipka boxingka ah. Dhammaan dadka xaafadda way isku imaanayaan si ay u daawadaan gabadhooda ka socoto xaafadooda iyo wadankoodaba, calankoodana u tartamayso. TV yar inay halkaa ka wada daawanayaan, halka aabaheed meel gooniyo iska fadho asigoo weli u careysan gabadhiisa maadaama ay waxaas ka dooratay. ciyaartii boxingka markay bilaabatana gabadhan si liidata ayay u bilaabanaysaa, kadibna aad ayaa loo qaraacayaa. dadkii xaafadana waxaa u malaysaa inay ka niyajabsan yihiin arrinkan, laakiin si lama filaan ay dadka xaafadda waxay u arkayaan aabaheed oo aad u qaylinayo, gabadhiisana halkiisa ka dhiirigelinayo. qof walbana aad ayuu ugu farxayaa arrinkan maadaama aabaheed uu markaan gabadhiisa u taageerayo. Maryna waxaa u malaysaa inay niyaddii qalbiga ka dareentay, dagaalkeeda ay labi jabaaraysaa. ugu dambeynna way ka guuleysanaysaa naagtii kasoo horjeeday. kadib aabaheed markuu arko TV ka fiirsaday gabadhiisa u guuleysatay, farxad ayuu la iimeynayaa. markaan waxaa moodaa aabaheed inuu aad u qancay gabadhan xirfadeeda, aadna ugu faraxsan yahay guulaha ay gaartay. Maryna aabaheed ayay waxay isu gadaysaa saacad hadiyad ugu keenaysaa kadib guushii ay ka soo qaaday garoonka Turkiga. marka waxaan arkaynaa Olnar iyo Mary oo suuq isla joogaan, waxayna ugu sheekaynaysaa hooyadeed mar walba inay ku soo celceliso inay nin wanaagsan ay raadsato si ay u guursato maadaama markaan qof weyn ay noqotay. Olnar ayaa isla markaas fursadaas ka faa'iideysanayo, kadibna u sheegayo inuu asiga aad ugu helay mar walba uu noqdano ninkeeda garabkeeda mar walba istaagsan hadday ogolaato asiga inay guursato. kulan kaloo championa iyo waxay ka qayb galaysaa Mary. markaan qofka ka soo horjeedo waa gabar Jarmal u dhalatay oo ruthless ah, gabdhaha ka soo horjeedana aad u qaraacda, wax naxariis aan u samaynin. ciyaarta markay bilaabatana Mary waxaa u malaysaa inay gabadha meel iska saarayso, laakiin wareegga labaad ayaa Mary aad loo weerarayaa, si xum ayaana loo gelayaa. waxaan u malaysaa maskaxdeeda inuu qasayo hadalkii Olnar uu ku dhahay, macnaha guurkii uu soo bandhigtay. ugu dambeynna macalinkeeda ayaa ku qaylinayo, wuxuuna u sheegayaa inay maskaxdeeda wax walba ka bixiso, ciyaartan sidii ku guuleysan lahayd kaliya ay ka fikirto, wax kale dhama iska joojiso. Maryna wadada saxda ay ku soo laabanaysaa, kadibna naagta si xum ayay u garaacaysaa, wayna ka raaynaysaa oo guusha iyada qaadanayso. mar kale markii saddexaad ayna waxay noqonaysaa world champion. Maryna farxadda halka ka qaaday waxay ugu qalinaysaa Olnar inay ka aqbalayso guurkiisa, laakiin arrinkan waxaa aad ugu xumaanaya macalinkeeda maadaama uu la doonayo gabadhan inay aad u sarreeyo ay ka gaarto boxingka, aadna ugu soo daalay. haddii arrimo guurgashane arrinteeda meeshaas ay ugu dhammaanayso, macalinkan aad ay u qalinaya in arrinkan dib u dhigato, focuskana ay saarto ciyaarahan boxingka. laakiin Mary uma joojinayso oo guurkeeda ay hore u sii wadanaysaa, oo gurigeedana u dhacayaa. aad ayayna ugu faraxsan tahay guurkeeda. waxaan arkaynaa macalinkii meel fog inuu ka fiirsanayo dhacdada halkan ka dhacayso, kumana faraxsana macalinka arrinkan. markaa muddo ayaa kasoo wareegatay kadib Mary guurkeeda. markaan waxaan arkaynaa iyadoo tijaabinayso inay ur leedahay in kale, waxaana soo baxaysa inay ur leedahay. kadibna ninkeeda ayuu sheegaysaa aad ayuuna ugu farxayaa, laakiin Mary kuma faraxsana arrinkan oo weli waxaa niyaddeeda ku jira boxingkii. markaan waxaan arkaynaa Mary oo sheegaysa ninkeeda inay aad ugu haysto ciyaarihii boxingka ee ciyaari jirtay, ninkeedana uu dareemayaa murugta ay ku haysa arrinkaani, kadibna niyadda ayuu dhisayaa. ugu dambeyn waxaa la soo gaarayaa Mary waqtigii ay foolanaysa isbitaalka ayaa la keenayaa. aad ayayna ugu dhibtoonaysaa foosha gabadhan, ilaa heer oo dhakhtarka uu soo jeediyay in la qala gabadhaani, laakiin ninkeeda ayaa ku adkaysanayo. ugu dambeynna gabadhii way umalaysaa oo ilmo mataana ayaa halkaa ku dhalaysaa. waxaan loo kala bixinayaa ilmaha Remba iyo Nanaai. waqti xaadirkaas Mary halkaa waxaa uu bilaabanaya hooyanimadii, waajibaadkeedana ay halkaa ka bilaabaysaa. sidoo kale dhanka dhaqaalaha aad ayuu u adkaanaya maadaama ilmo ay ku soo kordheen familka. ugu dambeynna Mary ninkeeda ayaa waxay ka codsanaysaa inay dib ugu laabato ciyaarihii boxingka ay ciyaari jirtay, waxayna ku leedahay dadkii way hilmaameen gabadhii la dhihi jiray Mary Com, marka waa inaan ciyaari ku noqdaa, dibna aan u soo noolayaa magaceygii. laakiin kalsooni kuma qabto inay soo noqon karto magaceeda soo cesho karto. markaas ayaa ninkeeda wuxuu bilaabaya inuu dhiirigeliyo, wuxuuna ku leeyahay waxaan hubaa inaad sidaada hore ku soo noqon karto iyo si ka fiicanba. laakiin waxay ku leedahay ilmo ayaa dhalay, sidii hore jirkeyga maahan, uma adadko sidii hore. laakiin ninkeeda kama rajaga dhigin oo wuxuu ku leeyahay sidaad hore ku soo noqon kartaa, tababar zaa'id ay kaliya ayaa u baahan tahay iyana dib aalamitada ugu laabato. isla subaxdii xigtana waxay bilaabaysaa aalamiitadii si ay jirkeeda ugu diyaariso ciyaarihii boxingka, laakiin mar walba ay carato aad ay u daalaysaa maadaama jirkeeda sidii hore aanu ahayn, istaminahana aad uu ugu yaryahay. markaan maalin ayay jiimka aadaysaa, kadibna way ka cabsanaysaa inay macalinka la kulanto, laakiin ugu dambeyn maalintii kale xigta ayay tegaysaa, macalinkiina ayay la kulmaysaa, laakiin macalinka la hadli maayo oo uu isaga tegayaa goobta. laakiin iyada tababarkeeda ay halkaa kasii bilaabaysaa oo asxaabteedii hore ayay la tababaranaysaa. kadibna maalin ayay macalinka gurigiisa ugu tegaysaa, waxayna u sheegaysaa go'aankeeda kama dambaysa inuu yahay inay ku soo laabato ciyaaraha, asiga la'aantiisana waxba ay qaban karin, waxbana ay nahayn la'aantiisa. Mary Camna waxay jirtaa adiga markaa joogta ay ku leedahay macalinka, oo adiga garabkeeda taagnin Mary Cam ma jirayso. ugu dambeynna macalinka uu ka ogolaanayaa, laakiin wuxuu shuruud uga dhigayaa inay laba jibaarto tababarkii ay qaadan jirtay maadaama ay u baahnahayso markaan tababar dheeri ah iyo jirkeeda aalamiito dheeri inuu qaato. kadibna waxay bilaabaysaa buuraha inay ku cararto, tababar dabiici uu siiyo. waxayna samaynaysaa exercise kala ah honey push up, gacmo socod iyo dirbisaar, tababar aad u adag inay halkaa ku qaadanaysaa. ugu dambeynna fursaddii ay soo boodayso oo waxa uu soo baxayso ciyaar inay uga qayb gashay Hindiya oo ka dhacaysa China, loona tartamay bilada dahabka.
familkeedii ilmaheeda ayayna macsalaameynaysaa markaan Mary markaan waxay bilaabaysaa sidii hore in ku soo laabato ciyaarta ka dambayso way ka sii raanaysaa oo guul isdaba joog ay gaaraysaa ilaa ay ka tagto finalka ciyaarta u dambayso laakiin dhanka kale ilmaheeda mid kamid ah ayaa waxa la soo dirsay xanuun ciyaarta markay bilaabay rabtay ida u socota ayaa la soo wacayaa ninkeeda ayana soo wacay kadibna wuxuu u sheegayaa in cunugeeda inuu xanuunsan yahay qalliin dhanka wadnaha u baahan yahay oo wadnihiisa duleel lagu arkay arrinkaas ayana wadna xanuun ku noqonaya gabadhan qalbi jab ayuu ku ridayaa ayadoo aad isku dhaxaysan ayna garoonka aadaysaa oo meel socotay meel kale garanaynin ilintana ka daadanayso iyadoo soo xasuusanaysa cunugteeda isla markaasna garoonka ciyaarta ka bilaabanaysa aad ayaan loo garaacayaa maadaama maskaxdeeda ay maqan tahay gabadhan dhanka kale India waxa ka socda operationka gabadheeda dhaqaatiirtu waxay ku hoolan yihiin cunugta badbaadinteeda halka Mary kamna ciyaarta aad lagu bahdilayo aad loo garaacayo tababarkeedana aad ugu xumaanay arrinka dhacayo roundigi labaad ciyaartana si xum ayaa loogu jecinayaa dhanka kale operationka cunugta wadnaheeda ay istaagayo dhaqaatiirtana la tacaal aad said ay sameynayaan laakiin ugu dambeyn way ku guuleysanayaan way soo kicinayaan wadnaheeda dhanka kale maadaama Mary dhulka ku dhacday teamkeeda ayaa aad ugu qeylinayo dhiirigelinayaan kadibna way istaagaysaa waxayna isku dayaysaa markaan inay niyadeeda celiso ciyaartana ay xoog saarto markaan waxayna markaan bilaabaysaa weerarkeeda tooska ah maadaama gabadhii kale maanta dhum ay dagaalamaysay yani ka muuqato inay yara daashi arrimaha waxaan garanaya dadka boxingka wax ka yaqaano waxaan u malaysaa Mary markaan inay gacan sareyso maalinkeeda oo TV ka fiirsanaya ciyaartana aad ay ugu farxay arrinkan ugu dambeyn Mary waxay leeyahay daanka ay ka leeyahay gabadhii ka soo horjeeday feer aad oo halis ah ayna ka soo kici karin qalbitaa marka uu tiriyana gabadhii halka khalaas halka ay u dhamaatay oo Mary sida ay ku guuleysanaysaa Mary markaan guul weyn ay wadanka u soo hoyday garoonka sacab ay asqabsanayo maadaama Mary hiriyadeeda laba mar ay rumaysay ayadoo single ah iyo iyadoo xaas ah qisada finalkan waa qisad dhab ah oo si reality u dhacday qisadana waxay baraysaa dib walba ka hor yimaado riyadaada mar walba inaad u dadaasho mar walbana sida rabto wax naqamaya laakiin dadaala uu gaaraa bilada marka la guuleysiinayo Mary ayaa macallimiinta mid kamid ah waxa uu soo dhacay telefoon waxaan loo sheegayaa cunugteeda in lagu guuleystay operationkeedii maalinkan halka ayuu u sheegayaa ugu tilmaamayaa halkaas ayaan laba farxad ku qaadanaysaa calankeedana hal kor ayaa loo qaadayaa filimkana maanta halka ayuu ku dhamaanayaa fadlan muuqaalka laagta iyo shirta ayaa laga hilmaamin haddana ugu cusubtaan nagu soo biir oo tiimkeeda ka mid noqo haddaad tiimkeedana hore ka mid tahana aad ay ugu mahadsan tahay waa inoo mar kale iyo filim aad u xiiso badan